Bismillahirrahmanirrahiim. Galab wanaagsan. Barnaamijkeena galabta waxaynu xoog ku saari doonaa oo falanqeyn doonaa kulankii xiisaha lahaa ee finalka Champions League oo xalay kooxda kubadda cagta ee Chelsea loo caleemo saaray. kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xalay gacanta saartay markii labaad koobka ugu qiimaha badan Yurub ee Champions League iyagoo ka hor istaagay Manchester City in ay ku guuleysato markeedii ugu horeysay koobka horyaalada Yurub. xidiga ugu qaalisan naadiga Chelsea Kai Havertz ayaa qaybtii hore ee ciyaarta daqiiqadii 42aad waxa uu gool u bedelay baas qurxoon oo uu ka helay khadka dhexe ee Chelsea Mason Mount isagoo banaanka ku soo iloobay goolhaya Ederson. ka hor xalay kooxda heysata horyaalka Premier League ee City ayaa ahayd kooxda ugu cadcad ee loo saadaalinayay ku guuleysashada Champions League balse waxa ay wajaheen niyad jab weyn finalkoodii ugu horeeyay ee koobka Champions League. kasako ku guuleysashadooda saddex ka mid ah afartii horyaal ee ugu dambeysay ee Premier League. tababara Pep Guardiola ayaa ku guuldareystay inuu soo xirigeliyo koobka qiimaha weyn ee kooxaha Yurub ka oo markii ugu dambeysay uu ku guuleystay ay ahayd sanadkii 2011 xilli uu ku sugnaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. dhanka kale tababaraha Chelsea ninka reer Jarmalay Thomas Tuchel ayaa ku guuleysashadiisa koobka Champions League ee xalay waxa ay timid sanad uun kadib markii uu guuldarro kala kulmay isla koobkan finalkiisa kooxda Bayern Munich oo finalka la ciyaartay kooxdiisii hore ee Paris Saint-Germain. waxa uuna shaqada kooxda ka dhisan galbeedka London ee Chelsea uu la wareegay 4 bil ka hor xilli shaqadaas laga ceeriyay halyeegii Chelsea ee Frank Lampard. mar uu ka hadlayay ku guuleysashada koobkan ayuu tababaraha reer Jarmal sheegay in qorshaha uu ahaa in ay noqdaan dhagaxaan ku jira kabaha kooxda kubadda cagta ee City. kooxda Manchester City xalay waa la kala furfuray iyada oo shaxda tababaraha Chelsea uu ku soo galay ciyaarta ay ahayd mid shaqeysa 100%. tababaraha kooxda City ee Pep Guardiola ayay noqotay shaxdiisa mid indhaha dadka ciyaarta la socday qabatay. tababaraha reer Spain oo lagu xanto in ciyaaraha muhiimka uu si aad ah u fikiro ayaa xalay ra'yigaasi mar kale banaanka soo dhigay. Guardiola ayaa ciyaarta ku soo bilaabay xidiga reer England ee Raheem Sterling waxa kaloo yaab noqotay markii shaxda Manchester City laga arki waayay midkood Fernandinho iyo Rodri. taa beddelkeedana tababaraha reer Spain ayaa khadka dhexe ee daafaca waxa uu ka howlgeliyay xidiga reer Jarmal ee Ilkay Gundogan. taa oo ay jirto ayuu xidigan kaarka digniinta ee jaalaha uu qaatay daqiiqadii 40aad ee ciyaarta taa oo sii adkeysay howshii loo soo dirsaday. Guardiola ayaa difaacay dhamaadkii ciyaarta go'aankiisa shaxda kooxdiisa ay ku soo gashay garoonka isaga oo sheegay in ciyaartoydii uu u xushay kulanka uu arkay kuwa ugu fiican ee qorshihiisa fulin karay. khadka dhexe ee Chelsea ayaa ciyaarta kontaroolkeeda hayay min bilow ilaa dhamaad waxaana si wacan mar kale wax walba u horay naadigiisa xidiga khadka dhexe xulka France iyo Chelsea ee N'Golo Kanté. xidiga reer France ayaa taagnaa meel walba oo garoonka ka tirsan waxaana oran karaa waxa uu ahaa haaf sababta Chelsea xalay ugu guuleysatay koobka Yurub. Chelsea ayaa adkeysay difaacooda iyadoo xilli walba Man City kubadda qabsato ay u ogolaan waayeen boosas ay kubadda isugu dhiibaan. waxaana taa u dheereed Chelsea xawaaraha weeraryahanadooda reer Jarmal oo u saamaxay in weerar celis degdeg ah ay sameeyaan mar walba ay kubadda ka helaan kooxda City. Chelsea ayaa la kulantay dib u dhac markii daafacooda khibradda leh ee reer Brazil Thiago Silva dhaawac looga saaray ciyaarta 6 daqiiqo ka hor dhamaadka qaybtii hore ee ciyaarta waxaana booskiisa lagu bedelay Christensen. 3 daqiiqo kadib waxaa Chelsea ay heshay goolkii go'aamiyay ciyaarta. khadka dhexe ee Chelsea Mason Mount ayaa baas wacan waxa uu ku kala dhambaalay difaaca Manchester City. goolhayaha City Ederson ayaa ku soo baxay kubaddaas laakiin waa uu awoodi waayay inuu hor istaago wiilka dheer ee reer Jarmal ee Kai Havertz oo gool firaaqo ah ku hubsaday kubadda. habeenka City ayaa sii xumaaday markii shitirgaambistahooda Kevin De Bruyne looga saaray ciyaarta dhaawac madaxa ka soo gaaray.
ciyaaryahankan ayaa waxa ay isku dhaceen daafaca Chelsea ee Rudiger, waxaana beddelkiisa ciyaarta soo galay weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus. Christian Pulisic oo beddel ku soo galay ciyaarta ayaa noqday Ameerikaankii ugu horreeyay ee dheela ciyaarta kama dambaysta ah ee horyaalada Yurub, waxa uuna ku dhawaaday in uu noqdo goolalihii ugu horreeyay, laakiin kubbadiisa ayaa dhinaca martay shabakka kooxda City. waan la qabsanay shaxda weeraryahan la'aanta ah ee City, laakiin xalay baahida gool ciyaarta waqti dheer ah ku dara awgeed Guardiola ayaa ciyaarta ku dhameystay iyadoo ay garoonka ku jiraan labadiisa weeraryahan ee Aguero iyo Gabriel Jesus. xalay ma noqon maca salaameyntii uu filayay weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero, kaas oo ciyaaray kulankiisii ugu dambeeyay ee naadiga Sky Blue. halyeeyga reer Argentina ayay u suurtageli weysay inuu mucjiso la mid ah tii 2012 ee City ku hanatay horyaalkeedii ugu horreeyay ee Premier League uu mar kale xal sameeyo. Manchester City ayaa sugi doonta koobkoodii ugu horreeyay ee Yurub, halka Thomas Tuchel uu Chelsea gacanta u galiyay koodii labaad xilli shaqada naadiga London uu hayay waqti 4 bilood ah. Manchester City cid aan ahayn nafteeda oo ay ku eedeyso dharbaaxadii xalay ma jirto, waxa ayna xalay goosha Chelsea ku tuureen hal darbo oo kaliya. waxa xalay la yaab kale ahayd milkiilaha kooxda Manchester City ayaan soo xaadirin ciyaartii ka dhacday Porto si uu taageero ugu muujiyo kooxdiisa. haddii ay dhici lahayd waxa ay noqon lahayd markii labaad oo lagu arko garoomada. dhinaca Chelsea, milkiilahooda Roman Abramovich ayaa xaadir ku ahaa ciyaarta, waxa uuna dabaaldega la qaybsaday ciyaartoydiisa. waxaase la yaab ahayd markii tababaraha Chelsea ee Thomas Tuchel uu sheegay in xalay ay ugu horeysay aragtida milkiilaha kooxdiisa. qarash kastoo ay milkiilayaasha reer Abu Dhabi geliyeen City si Pep Guardiola uu u dhiso koox ku guuleysatay horyaalka Yurub, dhabta ayaa in Pep Guardiola uusan weli kula guuleysan Champions League kooxuusan u dheeleynin mucjisada kubadda cagta ee Lionel Messi. natiijadii xalay miyay isbedeli lahayd haddii City ay ku guuleysan lahayd saxiixa xiddiga reer Argentina xil ciyaareedkii dhamaaday? fadlan fikirkaaga inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga. sidoo kale waxaa jira dhowr xaqiiqadood oo xalay la diiwaangeliyay. xalay ayaa noqotay markii ugu horeysay oo ay 3 Champions League isku xigta ay ku guuleystaan 3 macallin oo ka soo wada jeeda hal wadan, waana macalinka Chelsea ka hor ku guuleystay koobkani macalinkii hore ee Bayern Munich Hans Flick, waxaa ka sii horeeyay macalinka Liverpool ee Jurgen Klopp. sidoo kale waxaa la diiwaangeliyay goolhayaha kooxda Chelsea ee Edouard Mendy ayaa xilli ciyaareedkan Champions League 9 kulan ka ilaalishay wax gool ah shabakkiisa, waana rikoor cusub. sidoo kale xiddiga reer Afrika ayaa noqday goolhayihii ugu horeeyay ee madow ah ee ciyaara finalka Champions League tan iyo 2007 marka uu ciyaaray goolhayihii AC Milan xiddigii hore ee reer Brazil Dida. tababaraha kooxda City ee Pep Guardiola ayaa xalay khasaaray finalkii ugu horeeyay inta uu ku sugnaa Manchester City, waana markii labaad oo uu ciyaar final ah guuldaro ka soo gaartay macalinka noloshiisa tababare. Thomas Tuchel ayaa noqday macalinkii labaad ee taariikhda 3 kulan oo xiriir ah guuldaro hubiya macalinka reer Spain ee Pep Guardiola, waxaana rikoorkaas horey u haystay macalinka Liverpool ee Jurgen Klopp. kooxda Chelsea ayaa xalay guusheeda waxa ay ka dhigan tahay in ay badiyeen 6 ka mid ah 7 finaal ay ka dheeleen Yurub taariikhdooda. xiddiga reer Jarmal ee Kai Havertz ayaa goolkiisa xalay waxa uu ka dhigay laacibkii ugu da'da yaraa ee Jarmal ah ee gool ka dhaliya finalka Champions League, waxaana rikoorkaasi horey u haystay xiddigii hore ee kooxda Borussia Dortmund Lars Ricken oo sanadii 1997 kooxda Juventus ka dhaliyay gool xilli uu ku hardamayeen finalka Champions League oo kooxdiisu qaaday. sidoo kale Havertz ayaa noqday ciyaaryahankii labaad ee goolkiisii ugu horeeyay ee Champions League dhaliya ciyaar final ah, waxaana horey midda oo kale u sameeyay laacibka City ee Ilkay Gundogan.